بسم الله الرحمن الرحيم war-saxaafadeed wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay shirka wada tashiga Puntland ee socday 15 ilaa 17 March annagoo ah wafdiga dowladda federaalka uga soo qayb galay shirka wada tashiga Puntland waxaanu war-saxaafadeedkan u qabanay inaan ku cadeyno arrimahan soo socda. waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni uu ku tagayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xalliyo wixii khilaaf ah oo jira. qodobka labaad waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wada tashiga. qodobka saddexaad waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen. qodobka afraad waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada amniga iyo horumarka Puntland. qodobka shanaad waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka. waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkaan inaan ka cadeyno erayadii xanafta lahaa ee warmartiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dowlad goboleedyada kale taasoo aan qayb ka ahayn ajandihii shirka kuna jirin hadal soo jeedintii wufuudda kuna jirin doodihii shirka. ugu dambeyntii wafdigu wuxuu u rajaynayaa kulanka Muqdisho ee madaxda federaalka iyo madaxweynaha Puntland inuu ku dhamaado isfahan wada shaqayn iyo guul si loo gaaro danta ummadda Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin.